waxaan u soo joogay xog baan helnay anigoo taliye abniya oo taliye baan xog helnay waxaana loo keenay liis nimanka shabaabka nala shaqeynaya waxay noo keeneen shabaab waxay dhaheen liiskan oo dawladda ka mid ah way nala shaqeeyaan ogaada waa dad magacii iyo qabiilkii iyo meeshuu ka shaqeeyay iyo mas-uuliyaddii baa ku qoran waxaan xasuustaa waxaan idhi war dadkaan aanu ka howlgalno waa cali maxamed waa la yaqaana aan ka howlgalno de waa dad la yaqaano de farmashiga cali maxamed ama farmashiga xabiiba camal loo yaqaano soomada garan waxaa laygu yidhi ninkii aan hawsha ula tego markaas iga habboonay wuxuu ugu yidhi war heedhe shabaabku kadadda isticmaalayaan waxay tahay dadkay isha ka marmara waayeen bay doonayaan in lagu diraan marka waan fahamsannahay maaragtay qorshahooda iyo istaraatiijiyadooda ka yeeli mayno qad wasat war hadda aan hubin barta dabagal ku sameeyno ninka nala shaqeeyo lacag baan ku siinaa inuu xogta noo soo gudbiyo shabaabka dhinacooda Soomaan waana nin shabaab aanu ka daba tagno arinta iska dhaaf waxa noogu muhiimsanaa jiray anu kama shaki karo wixii wasiirkii taliyay iyo ma aqaan isaga baan uga shakiyay laakiin waxa isleeyahay waa faham daro waxa dhacda marka maalmaha kamid baarlamaankii baashiray baarlamaankii oo shir haysta baa leeyahay adiga mas'uulka ah baarlamaanku adiga mas'uulka oo amniga baarlamaanka mas'uulka markaas ka horna baarlamaan dhowr jeer la galay marka waa break fiican la kala qaatay oo la isku iimaanay waxaan ku qasbanaa marka inaan meel kasta farta geliyo si aan u sugo amaankaas baarlamaanku inuu qabsado maalintaas ciidamada la isii waxa la yiraahdaa mas'uulka meelaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka laga soo galay liiskii nala siiyey nin kamid ah ku jiro taliye ka ah baaba taliye ka liiska meel kamid ganjeeladii geedadka baarlamaanka laga soo galo liiskii nala siiyey nin kamid ah ku jiro waxaan la hadlay ninkii taliyaha waxaan ku yiri wareed أنا وما شيء نسيت وحينا كنا يقبل إذا كان يقبل ما حد عيون يقبل أنا كنا وأمر يقبل وياه تكلمت يبقى كوري وشوت بري وداعي همين كم قصة لابطول وجهه والسير كيبان وعي أبني هم كوري إذا كاس يقبل والسير كنا حكته وهي يقبل إذا كان ماشي وياه الصبح يبان وجهه إلا أمر كده أنا وتوه أنا ده مدحوا ما هي نتقوي من كورة لسن أديجا يعين كادو بح شغله ولا ينكت جوجي إلا أن خول إلا أفرد ساعة وصعد حافظيني هذا ولا عيدك على ماشي كاس حدي قترت أنت أصلك دحقلك أنت أصلك يا الشباب نقول إحليه قان قاعد شدون إستاس وقالتها مدحتين بحاد كسوجيسا وحك عليه أنت وحنا حسوسته أنت نوجوبي هاد بقى اللي يرادو أنا فارسل سنة جوردي هي أدنى بتسويد وحبيرها على السنة ده عيب وأنا غلط إن هي أدنى بتسويده أي سنة جورة سما يسطر أي صوبان دكتو أسكرتي دي إيو سراكيشي أنا صرت تليه مركز جو تليه بشير قابوها وحو ما دبوا بوليس كي من المركز وحو dareemayay in la soo bandhigo qaab min al-maarati la muujiyo awoodada iyo maarta farsamada maalin marka waxaan xasuustaa la soo bandhigay hay'ad oo dhan waxa la keenay bajaajiyo halka la soo safray waxaan ku sheegay dawladda Soomaaliya waxay ka fahamka in nabadgelyada amsanta waxa la keenay gaari gacano caasiyaal baa la soo safray waa la soo display gareeyay markaas idaacadihi baa la keenay سراكيشي مدحوينه حسن شيخ بالله أما مدحوينها عبد الكريم قول هذا وسيرها ولا سقوع وصفى على سوق اليوم وقوة ماشى بالوينه ده هذا قول هذا مركز عليه وحان الديار إنه جديد كاس مو جديد عالم بوهوس كلية مو جديد ولا قرنية ولا شيء إن وحلو قرنية علامة داسيلية ولا وقفت تاكسي جاز أنا جاز كله وحان الرئيس سوق الله درو قف شعب وقاته ودي على الشباب صوت صوم هذا قرر waxa iska daran markii la gaaray maadaama ay faanka jeceliye madaxda Soomaaliyeed markii la gaaray baa waxa la yiri hebel amal marina la diibaya shabaab oo eber ka dhigay cadawga ayuu laayay wiilkan amal marinta ku siinay national TV ga hortiisa hooyadiis jaamacadna wuu dhigtaa wasaaradda caafimaadkan uu ka shaqeeyaa ama waxbarasho maba ogaba inuu nabad sugid yahay Soomaaliya garan waxaan xasuustaa wiil
lagu qasbay inuu maalinta shahaado qaato lagu qasbay inuu xafladda ka soo qayb galo wuxuu ugu yiri waxaan dhintay markii magacayga la yimaado markaas baan dhintay maalin dhaxaan arkay wiilka weli wuu nool yahay wuxuu ugu yiri 10 jeer ayaan qatar galay in 10 jeer ka intaasoo jeerna xabada la igu dhiftay waan dhimo waay waxaan ku yiri markaa hooyaday waxay og tahay inaan iskool dhigto jaamacad dhigto wasaaradda caafimaadkana ka shaqeeyo hadday maanta iiga jeeda meeshaan oo dhan gurigeedaan ugu noqonahaa qabad fahamka Soomaaliya nabad sugid iyo amni dadka maanta haya aad leedahay ma u sheegtay war waxaasi wax ka weyn loo sheegay waxaasi wax ka khatar badan inay ku dhaqmayaan waana nasiib darro aan cid xisaabtamo ku jiro waayahay siyaasiyiintiina iyo shacabka odayaasha dhaqanka inta badan markay weeraray qarxay dhacaan waxaad idin u jeediyaan dawladda odayaasha iyo shacabka dhammaan siyaasiyiinta maxaa diiday in eedeynta al-shabaab iyaga loo jeediyo wala qarxiyada shacabkii waxaan ka baayay nin aad xoog cashuur ku siinaysid qasab ay tahay inaad cashuur ku siiso macnaana kartid eedna uma jeedin kartid sababta waxaad awoodi weysay dukaankaadan yarka ah 3 mitir ee aad ilmaha uga raadsato $20 ayuu cashuur ku dul dhigay wiilkaadii iyo gabadhaadina bas uu ku qarxiyay shalay waa ogtahay hooyadaana waxa laga yaabaa maalin dhexdaas inuu dilay waad ku qasban tahay inaad siido cashuur qofka heer levelkaas joogay shacabka cid lama xisaabtami karee naftiisii baa suuqa taala wadnihiisii baa quraanshadii tuqsigu cunay Soomaaliga garan marka lama weydii karo qofka Soomaaliga maxad u la xisaabtamaysa waxaan u maleynayaa dadku inay dhahaan shacabka haday dawladda la shaqeynayaan maxay ayagu shabaabka war shacab wax la yiraahdo ma jira war dadka baarkii baa islaahay war dadka waa la xukumaa hooyo wiilkeedu wuxuu yahay taqaana ma jirto dawlad la isku haleeyaa ma jirto Soomaaliya markaad fiiriso go'aanka qofka ugu sareeyaa iskale ani hay'adda nabad sugidda markaan ka shaqeynay waxaan xasuustaa waxyaabo oo aad uga bedelan waxyaabaha hay'adu ku shaqeeyaan wax kale ma ahna go'aanka wax qaadanay qofka awood badan waxaana aan ehel u lahayn Soomaaliga garan wax tan hadda aan ku sheegayo wax ka muhiim marka kale waan u bandhigay wax ka muhiimsan soo bandhig wax ka fudud lagu badbaadi karo laakiin madaxweynuhu ama wasiirka amniga ama taliyaha amniga ka sarreeya muhiim ma aha waxaas dan weyn kama galan